imaamkii hore ee masaajidka alxarameynta ayaa ka soo muuqday filimaan iyo weliba meelo kale oo aan laga filaynin. imaam alcaadil albani ayaa waxa uu ka muuqanayaa meelo kala duwan isagoo lagu arkay isagoo filimaan matalaya islamarkaasina ku jira. imaamka masaajidka alxarameynta ayaa waxa uu sheegay in sababta uu u sameynaya ay tahay in lagu cunsuriyey halkaasi islamarkaasina loola dhaqmay si aan bini-aadanimada ku jirin. waxa uu yidhi waxay igu yeeri jireen waxshi ama mataqaanaa addoonkii madoobaha. waxa ay sidoo kale iila dhaqmeen culummada ugu waaweyn sacuudiga si aan qof bini-aadam ah loola dhaqan. waxa uu sheegay imaamkani intii uu ka ahaa masaajidka imaam in uu ku ahaa dulqaad balse aan loo muujin jirin wax ixtiraam ah iyo sidoo kale sharaf. 2018 waxa uu ka soo muuqday bandhig lagu fureeyey turub kaasi oo aad uga fog dhanka diinta markii loo imaado ciyaaristiisa iyo weliba khamaarka waxyaabaha ah. sheekha ayaa waxa uu sheegay in ay u sameynayo wax kasta oo nafsadiisa ay jeceshahay iyo meel walba oo xurmo looga hayo. waxa uu sheegay in haddii ay masaajidka ku ixtiraami waayeen kuwa turubka ay ixtiraamayaan ayadoo taasi lala yaabanaa ayaa haddana waxa uu ka soo muuqday filimaan lagu xayeysiinaya ciyaaraha iyo waxyaabo kale. sheekhan al imaam ayaa waxa uu sheegay in uu sameynayo wax kasta oo naftiisa uu ku farxad gelin karo balse wuxuu warbaahinada qaar u sheegay maruu la hadlay in sacuudiga culimmada ugu waaweyn ay ula dhaqmeen si bili-aadanimo ka bax ah islamarkaasina aysan u muujinin wax xurmaa intii uu ahaa imaamka masaajidkana laga eriyey asaga oo weli imaam ka ah. imaam alcaadil albani ayaa waxa uu yidhi anigu wax walbo aan sameynayo waxaan u sameynayaa ogaansho, ma jiraan wax iga qaldan balse nafsadeyda ayaan ku raaligelinayaa maadaama xurmo laygu muujin waayey. wixii aan ahaa diinta kama tagin kamana bixin balse shaqooyinkayga ayaan haystaa. tani ayaa jariiradaha caalamka ay la yaaban yihiin islamarkaasina dadka iyaga adaroosa arrimaha diinta ayaa waxa ay ku sheegeen dhacdo la yaab leh islamarkaasina waa mid ka mid ah mucjisaadka dunida kusoo kordhaya. imaam isku bedelay jilaa filim iyo weliba mid daahfura goobaha khamaarka. wax cusub ma aha in la arko fanaan ahaan jiray imaam, fanaan ahaan jiray wadaad iyo sidoo kale in la arko jilaa ahaan jiray wadaad. dhacdooyinkan ayaa horey u dhacay. sidoo kale in la arko qof fanaan ahaa ama jilaa ahaa oo wadaad isku bedelay ayaduna wax cusub maaha. oo waxaa ka mid ah allah u naxariistee sawraan waxa uu ka mid ahaa walladii waaberi. ugu dambeynna waxa uu ka mid noqday wadaadada sacuudiga masaajida ka aadaama islamarkaasina imaam ka noqday mid ka mid a masaajida sacuudiga ku yaala. sidoo kale dhanka soomaalida haddaynu imaano waxaa jiraan dhalinyaro badan oo hadda fanaaniin ah balse fuleexantiisa ma mooga ayaa la yidhaahdaa oo iyagu yaraantoodii ama markii inta aysan fanka kusoo biirin culimo ahaa. hadday ahaan lahayd macalin dugsi, imaam masaajid, mu-aadan iyo weliba dhammaan waxyaha kala duwan ee diinta lagu fidiya ayay ka shaqey jireen balse hadda waa hoballe codkooda lagu dhageysto islamarkaasina lagu raaxaysto heesahooda. dembi waa halkiise. imaamka masaajidka alxarameynta ama imaamkii masaajidka ee hore ee sheekh caadil imaam albani ayaa hadda ah actor iyadoo kambaniyada filimaanta ay ku qaateen wejigiisa iyo weliba garkiisa weyn. waxa ay ku tilmaameen in uu yahay mid ka mid a laadiriinta dunida ka jira kuwooda ugu quruxda badan dhanka cabsida wejigii ka muuqanaysa dadka. wejigiisa oo ah weji aad looga cabsanayo islamarkaasina u muuqanaya mid dadka marka ay fiiriyaan indhaha loo dhammeyn karin ayaa waxa uu uga faa'iideysanayaa in uu noqdo laadir weyn. filimaan badan oo kale ayaa la fili doonaa inuu kasoo muuqan doono imaam alcaadil albani oo ah imaamkii hore ee masaajidka alxarameynta. waxa uuna sheegayaa in uu sii wadi doono taalentigiisa uusanna joojin doonin. fanaaniinta soomaaliyeed kuwooda kasoo laabtay fanka ayaa waxaa ka mid ah sheekh axmed khayr oo lagu magacaabi jiray axmed biif, maxamed siciid b k oo hadda isaguna ka haray iyo sidoo kale weliba cabdihani. dhalinyaro badan ayaa iyagu fanka iskaga haray oo ku biiray halka wadaado badanna ay hadda ku biirayaan
fanka noocyadiisa kala duwan waa adduunyo ka doon dabadeeda aan taagannahay.